madaxweynaha wadanka Turkiga Recep Tayyip Erdogan waxay hadda u muuqataa galka in uu seefta kala baxay xiisada gobolka bariga dhaxana waxa ay yeelatay waji ka bedelan kii hore 48 saac ayaa waxa warbaahinta eedaym kala duwan isku marinayay dhinaca Turkida iyo waliba nidaamka Israel goordhow war ayaa ka soo baxay Ankara waxana la leeyahay lama aqbali karayo talaabo kasta oo nidaamka Israa'iiliyiinta uu ku dhaqaaqay oo looga soo horjeeda wadanka Syria Ankara waxay leedahay ma aqbali karayno in aan meel cidla kaga dhaqaaqno gobonnimada wadamada ay ka mid yihiin Syria Lebanon iyo sidoo kale dhulka Falastiiniyiinta oo ay gumaysta Israel ku calan walaynayaan waa sida ay yiraahdeen haddaba doodan cusub sidee loo fasirayaa wasiirka dagaalka ee nidaamka Israa'iiliyiinta ee Katsna waxa uu leeyahay yaanay ku fakirin Ankara inay isugu yimaadaan halkaasi ciidamadeeda gudaha wadanka Syria ma aqbali karayno mana isa saaran doona gacmaha ayuu yiri tani waa dagaal lahjad colaadeed iyo waliba dhinacyadu in ay aad u loolamayaan dawladda Ahmed Sharac ayaa durbaba u muuqatay inay jihad dambe martay si ay dagaalka hadda taagan u xalliso wasiirkiisa amuraha dibadda Shaybani ayaa waxa lagu soo warramayaa in wada hadal uu la yeeshay agaasimaha hay'adda sirdoonka ee nidaamka Israa'iiliyiinta ee Mossad la yiraahdo waxana ay ka wada hadleen xaaladda gobolka siyaasadda iyo waliba duqeymihii ugu dambeeyay ee laga sameeyay wadanka Syria maxay tahay dalabka xasaasiga ah ee dawladda Dimashq ay u gudbisay Tel Aviv barnaamijka ayaan khiyaarta ay nala socotay ku eegi doonaa loolanka xiisadan iyo jihada gobolka bariga dhexe uu hadda aadi karayo dawladda jamhuuriyadda islaamiga ah ee Iran waxa ay ku dhawaaqeen ciidamadeeda ilaalada kacaanka haddii dagaalka dawladda Mareykanka iyo xulifadeeda mar kale ay ku soo qaadaan wadanka Iran in ay adeegsan doonaan hub ka yaabin doona caalamka kaydad qarsoon baa jira ay leeyihiin waxa ka dhacana dhagaha ayaa faraha la gashan doona markan dalalka qaliishka ee saldhigyada siiya Mareykanka wadnaha ayaa rugle oo farta ay halkaas ku hayaan maxay dawladda Iran ku tilmaamaysaa hubkan cusub muxuu yahay durbaba walaaca caalamka soo food saaray si gaar ah ayaan khiyaaray u eegi doonaa barnaamijka dawladda Masar iyo waliba Qatarna mas'uuliyiinteeda sare ayaa kulmay xilli gobolka bariga dhexe jiha cusub iyo dhaba hor leh uu hadda ku sii jeedo Trump dagaal ayuu qalqaalinayaa Iran waa hanjabaysaa Turkiga furin cusub ayaa ku furantay Israa'iilna xaaladeedu waa gabadhaclaynaysa Syria waxay noqotay goob laba dal ay ku dagaalamaan Mareykankana dhinacyadan ishaya sheeda sare ayuu ka eeganayaa haddaba marka la eego gudaha wadanka Syria ma badbaadin karaa Erdogan ciidamadiisna kaalin inta laagay ku yeelan karaan gudaha wadankaas xiisada u dhaxaysa dawladda Turkiga iyo nidaamka Israa'iiliyiintu cirka ay isku shareereen saacadihii la soo dhaafay Israa'iil tan iyo xalay hanjabaad kala duwan ay jeedinaysay waxay tilmaamayeen inaysan aqbali doonin waa sida ay yiraahdeen ciidamada wadanka Turkidu inaanay gudaha Syria soo gali karin dagaal faraha looga gubtay ayaa looga baqayaa halkaasi inkastoo dhinacyadan taariikhda ay leeyihiin midba midka kale uu ka waabanayo oo aanay suuragal ahayn inay isku bambaxaan laakiin Ankara ayaa beenisay dhaliil ka soo baxday Israa'iil waxana ay ku tilmaameen in ciidamadoodu aanay halkaasi ku sugnayn laakiin Israa'iil ay doonayso marmarsiyo dagaal ay Turkiga ugu soo jeedaan wasaaradda gaashaandhigga ee wadanka Turkiga ayaa si cad u beeniyay wararka sheegaya in ciidamada ama wafdi military oo Turkiga ay ku sugnaayeen saldhigga diyaaradaha ee Abu al-Duhur ee waqooyi galbeed Syria xilli saldhiggaasi uu dhawaan bartilmaameed u noqday duqeymo ay Israa'iil ka fuliyeen halkaasi afhayeen u hadlay wasaaradda difaaca wadanka Turkiga Zaki Aktukri ayaa shir jaraa'id ku sheegay inaysan jirin wax wafdi military ah oo Turkida ka joogay saldhiggaasi ka hor ama kadib xilliga ay dhaceen duqeymaha Israa'iiliyiinta Akturka ayaa sidoo kale si cad u sheegay in aysan jirin askar Turki ah oo ku sugnayd saldhigga Abu al-Duhur
iyadoo meesha laga saaray wararka tilmaamaya in Ankara ay qorsheynayso in ciidamada halkaasi ay dejiso isla markaana ay u sahan tageen. wasaaradda gaashaandhigga ee wadanka Turkigu waxay si adag u cambaaraysay duqeymaha Israa'iiliyiinta iyagoo tilmaamay weerarka mid aan la aqbali karin oo wax u dhimaya madax banaanida midnimada iyo dhulka wadanka Syria isla markaana uu qatar ku yahay baa la yiri xasiloonida wadankaasi iyo guud ahaanba gobolka bariga dhexe. khilaafka Ankara iyo Tel Aviv ayaa u muuqanaya in uu hadda aad u sii xoogaysanayo iyadoo dhinacyadu aanay hadda wax naxariisa isa siinayn. loolanka ra'yiga dadweynaha iyo abaabulka militarigu waxa uu gaaray meeshii ugu xooganayd waxaana laga baqayaa labadan quwadood ee ugu xooga badan gobolka bariga dhexe in ay isjidayn doonaan oo midba midka kale dharbaaxa kulul gaarsiin doono. duqeymaha ka dhacay saldhigga Abu al-Dahur ayaa ku soo beegmay xilli ay sii kordhayaan khilaafaadka u dhaxeeya Turkida iyo Israa'iil ee ku saabsan mustaqbalka amniga iyo ciidanka wadanka Syria. Israa'iil ayaa sheegtay inay ka walaacsan tahay qorshe ay Turkidu ciidamo ugu diri lahaayeen saldhiggaasi iyagoo arrinkaasi u arka baa la yiri qatar amni. Ankara dhankeeda waxa ay ku tilmaantay eedeymaha Israa'iil kuwa aan sal iyo raad lahayn oo ah been la soo dhoodhoobay. waxaana ay ku tilmaameen eedeymaha Israa'iil kuwa aan la aqbali karin in ay sii socdaan. iyadoo xaalka uu halkaasi taagan yahay haddana wasiirka wasaaradda dagaalka ee nidaamka Israa'iiliyiinta Israel Katz ayaa si weyn u dhaliilay baa la yiri dowladda uu hogaamiye madaxweyne Rajab Tayyip Erdogan waxaana uu ku eedeeyay in ay ka shaqeynayaan dagaal iyo waliba in gobolka bariga dhexe ay gelinayaan xiisad aan loo baahnayn oo muujinaysa colaadu in ay sii ballaarato isla markaana ay gaarto mid ka mid ah meelihii ugu sarreeyay. Katz waxa uu tilmaamay ciidamadiisu inay qaadayaan tallaabo kasta oo ay kaga hortagayaan waxa uu ku tilmaamay dandaansiga Turkidu ay ka wadaan gobolkaasi gaar ahaan qaybaha ku dhow xuduudaha buu yiri nidaamka Israa'iiliyiintu ay leeyihiin. dhinaca kale wasiirka muraha dibadda ee wadanka Syria Shaybani ayaa la kulmay Roman Government oo ah ninka hogaamiyaha hay'adda sirdoonka ee nidaamka Israa'iil xilli suurtagalnimada dagaal dhex mari kara dowladaha Turkiga iyo nidaamka Israa'iiliyiintu uu hadda aad u dhow yahay walaac badan ay ka muujinayaan khubaradan. laakiin dowladda Syria ayaa doonaysa si iskeeda colaadan inay u xalliso dhulkeeda uusan noqon furin ay ku loolamaan labada quwadood ee ugu xoogtaalka sarreeya gobolkaasi bariga dhexe. sida ay ku warantay wakaaladda wararka ee la yiraahdo Reuters oo warisay baa la yiri in madaxa sirdoonka Israa'iil ee Mossad Roman Government iyo wasiirka muraha dibadda ee wadanka Syria Asad al-Shaybani ay ka wada hadleen joogitaanka militariga ee Turkiga gudaha wadanka Syria kahor inta aysan Israa'iil fulin duqeymihii ugu dambeeyay ee ka dhacay gobolka Idlib. saddex ilo wareed oo xog ogaal ayaa Reuters u sheegay in Roman Government uu 14 Agoosto qadka teleefanka kula xiriiray Asad al-Shaybani iyadoo labada mas'uul ay si gaar ah uga wada hadleen arrinta ku saabsan joogitaanka ciidanka Turkiga ee wadanka Syria taasoo Israa'iil u aragtay inay tahay qatar weyn oo ku soo socota mustaqbalkana wax weyn u dhimi karaysa. wadahadalka ayaa dhacay maalmo kooban ka hor duqeymo ay Israa'iil ka fulisay saldhigga militariga ee Syria oo ku yaala waqooyi galbeed ee wadankaasi. xiriir heer sare ah oo u dhaxeeya Israa'iil iyo Syria ayaa la saadaalinayay laakiin waxay u muuqataa xaalku inuu dhinac kale isku rogayo. wadahadalkan ayaa noqonaya mid ka mid ah xiriiradii ugu heerka sarreeya ee la xaqiijiyay ee dhexmara Israa'iil iyo dowladda cusub ee Syria tan iyo markii uu dhacay isbeddelkii siyaasadeed ee dhashay dhamaadkii 2024. xogtan ayaa soo baxday kadib markii diyaaradaha dagaalka Israa'iiliyiintu ay salaasadii duqeymo ku qaadeen saldhigga diyaaradaha militariga Abu al-Dahur ee ku yaala duleedka gobolka Idlib ee waqooyi galbeed wadanka Syria. dowladda nidaamka Israa'iil aan yiraahdo ayaa kadib weerarka sheegtay in Syria ay ku dhaweyd
in ay jabiso isafgaradka ay la lahayd Israel iyadoo ogolaanaysa in ciidamada Turkidu ay halkaasi ka samaystaan saldhig baaxadiisu ay weyn tahay. arrinta joogitaanka ciidamada Turkida ee Syria ayaa hadda u muuqanaysa inay noqoto mid ka mid ah qodobada ugu xasaasisan ee saameynta ah ee u dhaxeeya Ankara, Tel Aviv iyo Dimashq. Israel ayaa si gaar ah uga walacsan in Turkiga uu kordhiyo joogitaankiisa militariga ee gudaha Syria, halka Ankara ay si joogto ah u sheegtay joogitaankeeda Syria inuu la xiriiro arrimo amni iyo iskaashi u dhaxeeya labada dhinac. dhinaca kale dowladda Syria ayaa wajahaysa cadaadis sii kordhaya oo kaga imaanaya labada dhinac iyadoo isku dayaysa inay ilaaliso madax banaanideeda isla markaana ay ka fogaato dhulkeeda inuu noqdo goob ay ku hardamaan quwadaha ugu culus uguna miisaanka badan gobolka Bariga Dhexe. sida ay sheegtay wakaaladda Reuters, xiriirka dhexmaray madaxa Mossad iyo wasiirka amuraha dibadda Syria Asad Shaybani ayaa muujinaya in arrinta ciidamada Turkidu ay ahayd qodobka ugu muhiimsan ee miiska saarnaa ka hor duqeymaha, taasoo Israel ku kaliftay baa layidhi in ay xoojiso weerarka sii xoogaysanaya ee gobolkaasi ka taagan. ciidamada ilaalada kacaanka ee Jamhuuriyadda Islaamiga Iran ayaa ku dhawaaqay in haddii dagaalka Mareykanka adyadka iyo daandaansigiisu uu mar kale dib u soo laabto ay adeegsan doonaan mid ka mid ah hub dunidu ay la yaabi doonaan. hubkaas ayaa waxa ay tilmaameen inuu yahay mid kaydka ugu jira oo haddii uu dhaco dhagaha faraha la gashan doono. waa luuqadii ugu adkayd oo hanjabaada oo ka soo baxaysa ciidamada wadankaasi Iran ee dagaalka muddada dheer kula jira dowladda ugu xooga badan caalamka waa Washington. ciidamada ilaalada kacaanka Islaamiga ah ee Iran ayaa soo saaray digniin culus iyagoo sheegay in haddii uu mar kale qarxo dagaal ay Iran adeegsan doonto hubka ka duwan kii hore oo awoodiisa iyo waxyeeladiisu ay ka culus tahay baa layidhi gantaaliha ay dowladdaasi ciidamadoodu tuurayeen. hadalkan ayaa ku soo beegmaya xilli ay sii xoogaysanayso xiisada u dhaxaysa Mareykanka iyo dowladda Iran kadib bilo gobolka Bariga Dhexe uu ku jiray jahwareer iyo dagaal aan lagu kala adkaan oo dhigbax weyn ku riday dhaqaalihii caalamka. ilaalada kacaanka ayaa fariintan ku muujiyay in awoodda militariga Iran aysan ku koobnayn hubka loo adeegsaday dagaalkii hore, iyagoo sheegay in haddii colaadda cusub ay bilowdaan ay jiri doonaan baa layidhi habab iyo hubab culus oo dowladdu ay dib dagaalka ugu gali doonaan. dhinaca kale madaxweynaha wadanka Mareykanka Donald Trump ayaa hanjabaad dhaqaale u jeediya dowlad kasta oo Iran taageerta ama u ogolaata hay-adaha Iran in ay xiriir ganacsi la yeeshaan. Trump ayaa hadalka sheegay baa layidhi dalalka ama hay-adaha sida weyn taageerada u siiya Tehran ay wajahi karaan cawaaqib dhaqaale oo culus, taas oo muujinaysa in Washington ay kordhinayso cadaadiska dhaqaalaha iyo siyaasadda ee saaran wadankaasi Iran. xiisadan cusub ayaa ku soo aadaysa kadib bilo dagaal iyo isku horimaadyo ka soconaya Bariga Dhexe, iyadoo labada dhinac ay isku haystaan baa layidhi arrimo la xiriira amniga, barnaamijka nuclearka Iran iyo saameynta gobolka uu ka mid yahay marinka istiraatiijiga ah ee Hormuz. hanjabaadaha culus ee ilaalada kacaanka ayaa sare u qaadaysa walaaca laga qabo in haddii dadaalada diblomaasiyaddu ay fashilmaan colaad cusub ay isu bedeli karayso dagaal ka ballaaran kii hore, iyadoo Iran ay sheegtay inay u diyaarsan tahay in ay adeegsato awood militari oo cusub oo saameyn ku yeelanaysa guud ahaanba gobolka. Iran tani waxay ka dhigan tahay inay dirtay fariin adag oo qalqalinaysa dhinacyo badan oo Washington gacan saar la leh. fariinta cusub ayaa u muuqata isku day lagu muujinayo in Iran ay weli leedahay awood ay kaga jawaabi karayso weerar kasta oo cusub, halka Washington dhinaceeda ay adeegsanayso cadaadis dhaqaale si ay u xadido taageerada caalamiga ah ee Tehran. xaaladda ayaa sidaas darteed weli u muuqanaysa inay tahay mid kacsan oo aan naxariis lahayn oo aan waxba la isku reeban doonin.